ugxaantaada ma jeceshahay inaad dib u korisid? Sidee loo badiyaa tayada ugxaanta dumarka? Haddii ugxaantaada daciif laga soo sheegay, dhibaato fara badanna ay kugu haysato inay ugxaantaadaba aan marna soo kobcaynin, mar walbana aa murugaysan tahay, haddaba waxaan kula wadaagayaa cabitaan si degdega ugxaantaada u korinayo. Ugxaantaada dhimatay ama daalaneed degdeg usoo korinayso. maalintii 2 koob haddii aad ka cabtid, isla markii farxad ayaa dareemaysaa. isbuuc gudihiisana waxaad dareemaysaa caadadaadii guurta ee dib kugu soo laaban doona insha allah. ilaahay subxaanahu watacaalana caafimaad ha idin siiyo. inta awlaad raadinaysa awlaad saalixiina dayibiina, inta haysatana ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeyo. allaahuma aamiin. ilaahu annagana hanaga reebin ducada. waxaan idinla wadaagayaa cabitaan degdeg kugu soo korinayso ugxaanta, degdegna caadada kaaga keeni doono haddii aad maaragta daalan tahay, haddii timahaaga ay taataan, haddii lagu xanuun aad leedahay, haddii maaragta dhabarka iyo mindhicirta ay ku xanuunayo, mar walba aad ayuu kuu caawin doonaa. lafaha hadday ku xanuunayaan degdeg ayuu kugu caafimaadi doonaa biidnillahi alkariim. ilaahay agtiisana lagama quusto, dadaalkana ma reebano. mar walbana waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada. youtube-kayga Laylo Official ayaan hadda soo dhigay. imaaw subscribe saar, nagu soo biir haddii aad ka mid tahay dadka ka cabanayo xanuunadaas. haddii aad caafimaad qabtana allah kuu siyaadiyo. subscribe-ka nagu caawi, leekana nagu caawi, dhanka tiktokana falowga sare iigu qaada insha allah. haddaba leegtiina saa'id ha noqdo, hala arko meel walbana si uu u gaaro. dadka asxaabtaada kula ahna u sheergareey. waa cabitaan caafimaad leh oo maaragtay naftaada u rooroon haddii calooshaada ay fadhido aan dhaqaaqaynin. haddaba soo dhawow celahay. gur walbana allaha barakeeyo, ducadana mar walba hala badiyo. mar kastan inaa istikfaarta badisid isku day. haddaa wax yar dareentid allah u carar saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed. ku celceli mar walba 1,000 jeer ama 100 jeer intii aad awootid. ducooyinka ma aragtay rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaaridiin. rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba innaka samiica ducaa. rabbi hablii min asaalixiin. اللهم وفقني من كل خير وسهل علي كل صعب واجعل نهايتي جهدي وتعبي فرح. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليك قالقا كسو دوادا channel Laylo Official. هادي أديكو عسبتهين سبسكرايب الله كومنت شير. هادي أد هوري إلا جوكتين الله كومنت شير دمانتي وحايد الله يهي قاعمة فرق كسو دوادا مانتا وحايد الله وذاقيا سبينج إي بانانا أما موس سيدا وتقانيد با موس كان إيو ماركت سبينج كان jirka wuxuu yeelayaa heerkul. jirkaaga haddii aad daalan tahay, haddii aad mar walba neeftuuraysid, cayil fara badan hadduu ku saaray, xeer fara badan hadduu ku dhibay, calool fadhi hadduu ku dhibay, madax xanuun hadduu ku dhibay, caado waraar hadduu ku dhibay, ugxaantaada daciif hadduu yahay, dhammaan wuu kaa caawinayaa spinachkan. haddii aad cabitaan ka dhigatid, sharaab ka dhigatid, ani mar walba waxaa idinla soo cararaa waxyaabaha nafaqada leh. ma qariyo, waa idinla soo wadaagaa waxyaabaha aad gurigaaga ka helaysid ayaa ku anfacaayo. haddaba ha karinin, deb ha saarin, biyo cad ku shubo, xabad moosa dhac shiido, cab. isla markii calooshaada way dhaqaaqaysaa. unugyadii dhinteen iyo dhammaan waxay noqonayaan degdeg ayay dib ugu soo noolaanayaan. ugxaantaada haddii daciif laga soo sheegay isbuuc ama 2 isbuuc markaa isticmaashid, isla marka ugxaantaada degdeg ayuu u kobcayaa, woona u korayaa. haddaba ma ka cabanaysaa caado wareer? caado wareerka aad ayuu usoo celinayaa. ka faa'iidaysi wacan walaalayga qaaligaa, waa idin jecelahay. yeelay ani mar walba waxaa idinla soo wadaagayaa waxyaabaha nafaqada leh, waxyaabaha jirka u fiican, waxyaabo iisi ah. kaniiniga faraha badan aad cunaysid waxaa kuu dhaamo alaabtan dabiiciga ah. bukurey ayay soomaalidu u taqaanaa, spinachna waa la dhahaa. haddaba biyo cad ku shiido, mooskaaga ku darso. waa kana mooska, xabad moos maalintii maqaarkaagu qurxinaya. mooskaas aa ujeedid qobkiisa wejiga iyo gacmaha iskaga nadiifi, dhexdana ka cab. maxaa yeelay maalinta 2 xabo moosa ama xabad moosa haddaa cuntid, spinachkaas haddii salar ahaan u cuntid ama shiidatid, maasha allah adigaa iska dareemi doontid. si degdegana waa dareemi doontaa inay jirkaaga ama daalkii faraha badnaay dib kaaga laaban doono insha allah. fitamiin D-ga ma aragtay ee cadceeda ayaa laga helaa spinachkan. haddaba soo dhawaada, fideogana leeg adigoo ii saarin ha iga tegin. waa arkaa baryahan maasha allah saraa igu qaadiin. sii badiya leegta. qalaadihii ama kii wax lagu shiidaa blenderkii ayaa halkaas soo dhigay. spinachkii oo qiyaasa bac weynaa soo kataa, marka qiyaasiyaan ku shubay halkaas. xabad moosa iigu jiro, 2 koob biyo ama koob biyahan ku shiidanayaa. maasha allah qac. markaan alaabahan dareemay inaan caafimaadkayga dib aan u helo mar walbo. caafimaadka yacni haddaad socotid, haddaa wax kasta cunaysid, candhuufta kuu macaan tahay, caafimaad ayaad haysataa alxamdulilah dheh.
allaha noo siyaadiyo annagana intaa haysanina allaha siiyo yacni waxaan jecelahay marka waxyaabihii aan dareemay oo daalka iga bi'iyo inaan idinla soo wadaago waxyaabaha ani jirkayga aan ka dareemo tamar fara badan aa yeelanaysaa hoosha degdegaad ku qabanaysaa jiifka badnaay hurda la-aanna waad ka ceemanaysaa habeenkii si fiican u seexanay waqtiga lagugu talagalay marka ka faa'iideyso abaayo iyo aboowe dhammaan waa idin wada anfacaysaa alaabtan qof walba ma aragtay waa yeel iyo ciroole iyo caruurba diidi maayo marka hala nafaqeeyo jirka jirkiina qurux ka dhiga wejigiina qurux ka dhiga maqaarka waxa qurxiyo xilliga qabooba iyo xilliga kuleelahaba waxyaabaha qurxiyo waa cabitaanka faraha badan aad cabaysid cabitaanka ha lagu dadaalo nafaqay jirkaaga haddii nabro yaryar leedahay haddii dhibaato fara badan leedahay haddii waxyaabaha la gubay aad leedahay isla marka waxyaabahaasoo dhan waa ka caafimaadaysaa ka faa'iideyso alaabahan aa idin tusaayay folic acidka xataa waa laga sameeyaa kaniiniga folic acidka ee dhasha lagu raadiyo ama kaniiniga maaragta ugxaanta lagu koriyo ayaa laga sameeyaa marka waxyaabaha dabiiciga ee laga sameeyay kaniiniyaasha ayaa idinla soo cararaa waa kan garaafahaas weynaad ku shubanaysaa fimilka guriga joogoo dhan waa wada cabaysiin haddii caabuq fara badan aad leedahay hergab soo noqnoqdo dhammaan wuu kaa caawinayaa caloosha fadhida wuu kaa socodsiinayaa marka walaalayga qaaligaa haddii caado wareer aad leedahay caadada dib ayuu kugu soo celinayaa ugxaanta degdeg ayuu kugu korinayaa maasha allah ilaahu noo daaweey qof walba oo haysato intaan haysanin ilaahu sii yaa rabbi maal ma aragtay xalaal ah oo irsaaqad waasac oo xalaala dhammaanteenba allah noo waasiciyo waan idin jecelahay guri walbana allah ha barakeeyo ducadana mar walba hala badiyo mar kastan inaa istikfaarta badisid isku day inaa mar walba istikfaarta badisid haddaa waxyar dareentid allah u carar astakfirullah dhe 100 jeer 1000 jeer intaa awoodid saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed ku celceli mar walba 1000 jeer ama 100 jeer intii aad awoodid ducooyinka ma aragtay rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaaridiin rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba innaka samiica ducaa rabbi hablii min asaalixiin اللهم وفقني من كل خير وسهل علي كل صعب واجعل نهايتي جهدي وتعبي فرح كدعيست مر والبا الله سبحانه وتعالى قف والبا مراد لمراد كيسو معسلهان إلهي كعنتها كساره إلهي سبحانه وتعالى أنا قف والبا وحنوصلنا عافيما تام ودقدق ورجينيها إن شاء الله اللهم آمين سود هذا فيديو غني إيشير قرايا ميلا سرسر إنو قارو هدي أجعشهين idinkana ii sheer gareeya insha allah ugxaantaada ma jeceshahay inaad dib u korisid sidee loo badiyaa tayada ugxaanta dumarka haddii ugxaantaada daciif laga soo sheegay dhibaato fara badanna ay kugu haysato inay ugxaantaadaba aan marna soo kobcaynin mar walbana aa murugaysan tahay haddaba waxaan kula wadaagayaa cabitaan si degdega ugxaantaada u korinayo ugxaanta